kulan ay soo qabanqaabisay hay'adda CBHR oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo kaas oo ay ka soo qayb galeen odayaal ganacsato dhalinyaro iyo haween kaas oo looga hadlayay barnaamijka higsiga cusub ee Soomaaliya ama New Deal-ka. Xasan Macali Yuusuf Balaag oo ah madaxa CBHR ee iyadu soo qabanqaabisay kulanka ayaa sharaxay ujeedada kulanka. CBHR Center for Peace and Human Rights hay'adda shirkadda ku gobolaas oo yaani wakiilku ama meel raay garab ku heli NGO raw ida oo saldhigay ay Muqdisho New Deal-ka kasaase reer Baydhabo madiyada reer Boqol madiyada reer Baydhabo yaata section hanta ngaadana New Deal wala ramadan wala qaadateena dadka New Deal-ka wada siin kooyana dhaqaalaha New Deal-ka la hakabiyay wala ku heleena dibadiska New Deal-ka la hakabiyay wala ku heleena shirka New Deal-ka oo la qabanay Soomaaliya dhan walku qabadi documents ka qoranta adduunyada la ku gadahay meel raay hamiga mar report la biyahay wala ku heleena muhiimada shirka una geeyay in iska kooyni arintiya ka saabsan ka soo qayb galayaasha kulankan ayaa ka dooday barnaamijkan higsiga cusub iyagoo sheegay in dawladda Soomaaliya waxba kala soo socodsiinin dadka ku dhaqan goboladan. Raayo Ibrahim Madeer oo kamid ahayd haweenkii fadhiyay kulanka kana hadashay ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in barnaamijka higsiga cusub ay meel ugu soo sheegto dadka ku dhaqan gobolada Baydhabo. wayna ningishay lagu diilka inay dhaqaalo xumoto meeraaysa la ka oo meeraaysa qaabkasta inaanu geliyada dhismada tababarada qaabka meeraaysa inay meeraaysa oo wal qodobada in sheegay dadka qabna laakiin walka ka soo meeraaysa madii uu sheegna gobolku uu degana igaarha gobolada meeraaysa ni wareegsan masad tuulooyinkan wal wali waa ku xalnay. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.